ammaanka gaarka ah ayaa howlgal lagu xaqiijinayo ka fuliyay gudaha magaalada degmada Beledxaawo ee gobolka Gado sida wadooyinka gaadiidka ay isticmaalaan waxaana ciidamada inta uu socday howlgalka ay ku baarayeen dadka iyo gawaarida noocyadooda kala duwan howlgalkaani ayaa qaatay muddo saacado ah ayaa inta uu socday la xiray wadooyinka dhammaan gawaarida ay isticmaalaan howlgalkan ayaa ku soo beegmay ayadoo maalmahani uu ka socday degmada Beledxaawo ee gobolka Gado shirweynaha maamulada gobolka Gado ay ku sugan yihiin maamulka degmada Beledxaawo ee gobolka Gado taliyaha amniga ee nabad sugidda ee degmada Beledxaawo aadan xarid Cabdullaahi ayaa ka warbixiyay ujeedka howlgalkaani howlgalka maanta aan sameeynay waa howlgal aan ku xaqiijinayno amniga degmada Beledxaawo degmada Beledxaawo waxa ka socdo shirki gobolka maadaama shirki gobolka uu ka socdo waa inaan xaqiijinaa amniga degmada Beledxaawo si ay u dhibaateeyeen dhaqaaqabayaasha shacabka degmada ku dhaqan maadaama degmada uu ka socdo shirki gobolka cadawga wax badan ayuu maleegaya in ummadda Soomaaliyeed uu ku dhibaateeyo marka anaga hadda baaritaanka aan sameeynayno waxaan u sameynaynaa inayba u suurta galin cadawga inuu dhibaateeyo shacabka ku dhaqan degmada Beledxaawo bulshada degmada Beledxaawo ku dhaqan Beledxaawo waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka ee degmada ka shaqeeya ay cidii arkaan ay ka shaqeeyaan ay soo sheegaan mar walba waxaan diyaar u nahay har iyo habeenba inay shacabka Beledxaawo ay nabad ku noolaadaan ayaan bay isku dayayaan insha Allah ta'ala laakiin ayagoo degmada soo gaarin baana inaan ka hortagnaa jecelnahay hadda xog kale oo dheeri oo jirto ma jirto laakiin degmada waxa ka socdo shirki gobolka marka hadii runtii inaad badbaadisaan shacabka ku dhaqan degmada cid kasta ee degmada Beledxaawo ku sugan oo muslima inaan badbaadino oo dhaqaaqabayaasha ay waxba u dhiman ayaan u diyaarsanahay Cabdinuur Shableeye Xasan Cabdinuur Shakir war degmada Beledxaawo ee gobolka Gado